ay soo tarayso dhibaatada dadka shacabka ka soo gaartay fatahaada webiga Shabeelle ka geystay magaalada Beledweyne iyo deegaano kamid ah gobolka Hiiraan ayaa magaalada Boosaaso waxa lagu qabtay kulan ay culimo awdiinku bulshada ugu baaqayeen inay gacan ka geystaan sidii loogu gurman lahaa bulshada gobolka Hiiraan ku dhibaataysan Sheekh Fuad Maxamuud Xaaji oo kamid ah culimo awdiinka magaalada Boosaaso ayaa sheegay in lacagihii ka soo haray gurmadkii abaaraha looga qayb qaadan doono sidii loogu caawin lahaa bulshada magaalada Beledweyne ku dhibaataysan waxaana bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqay in loo wada istaago caawinta walaalaha dhibaataysan waxaan rabaa halkan aan ugu baaqaynaa dadku inay aad iyo aad uga qayb qaataan gurmadka walaalaha waxaase jirtay maadaama anagu mar walba aan ka shaqayn jirnay gurmadka dadka waxa jirtay inaanu ka soo shaqaynay abaarihii ka dhacay Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kuwii Puntland ka dhacay abaarahaas shaqaan qabanay shaqadaas ayaa rabaa wax yar inaan dadka ka ogeysiiyo gurmadkii abaarta markaan ku jirnay lacagteena soo gashay waxay ahayd 1,204,942.30 ayay ahayd soo gashay lacagtaas 784,700 oo dollar waxaan ku dhaaminay biyo waxaan dhaaminay 7,847 booyadood oo biyo ayaan dhaaminay 152,634 waxaa lagu gaday raashin dadka loo qaybiyay buuhoodle lacag 20,000 oo raashin ah oo gaar ah ayaa iyaga loo diray si gaar ah loogu diray dadkii markii soo guuray oo ka soo guuray gobolada Soomaaliya ee kale markii ay goboladoodii ku noqonayeen shidaalkii lagu raray gudigu wuxuu kaga qayb qaatay 30,000 oo dollar kharashka ku baxay maxaan ku leeyahay xisaabtaas waxay ahayd 50,659.80 lacag waxay ahayd lacag account-kayga si khalad ugu dhacday oo dad kale u socotay oo markaas la ogaaday oo ay naga celiyeen xawaaladuhu waxay ahayd $2,570 waxaan u maleynayaa kulligood inay xawaalada amal ahaayeen labada lacagood oo qaybina baxday qaybina soo gashay marka la kala jaro waxa haraa oo ilaa waagi aan haynay oo account-nadayada ku jira $164,378 ayaa ku jira account-nada marka waxaan leenahay walaalahan aan u gurmano aan ka qayb qaadano madax iyo majaba Sheekh Daahir Cabdi iyo Sheekh Maxamed Macalin ayaa si isku mid ah bulshada muxsiniinta ugu baaqay in laga qayb qaato gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay fatahaada webiga Shabeelle ka geystay magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan arinta ka dhacday waa arin aad iyo aad u weyn waxaan markaa Soomaalida dibadda joogo dad wanaagsan ka buuxaan oo dadka gudaha jooga aad wax u siiyo oo aanu u joognay 30 sano ee burburku jiray iyo Soomaalida gudaha ku jirta intii waxaysata iyo dhammaan in loo gurmado waliba gaar ahaan reer Puntland wayna gurmadaan waxaan markaa ugu baaqaynaa bulshada dal iyo dibadba in dadka walaalaheena oo dhibku soo gaadhay gurmad degdega loo sameeyo xoolaha hadda uu Sheekh Fuad inoo sheegay waa xoolahan hadda rabno inaan wax ku bilowno laakiin xoolihii rasmiga wax lagu qaban lahaa idinka leedinka sugaya magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa laga dareemayaa olole loogu gurmanayo bulshada magaalada Beledweyne ku dhibaataysan oo dhib xoogan uu ka soo gaaray fatahaada webiga Shabeelle halkaas ka geystay Maxamed Madani Universal TV Boosaaso